الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أشياء ولا سعوتان وحنكون بقنا أستراليا لإنجليزكا. أستراليا مركان قاري وحلي يري دبوا قلنا قوك قيب مناسبة وين وكذا عيسى مقالة الشفي. الحمد لله وانكسو قاري إن كقيب قالوا حفلة دي وين يقول على أقونسي الصوماليلاند كونسلka reer Sheffield ay u sameeyeen dadka reer Somaliland iyo wadankeena eetaraafkaasoo ku salaysnaa horumarka ay Somaliland gaadhay xagga dimuqraadinimada, xagga doorashooyinka, xagga rule of law iyo horumar xagga nabadda iyo xasilooni iyo ayadoo 23 sanadood gaar u taagneyd taas oo dadka reer Somaliland ay goosteen in ay arrimadoodii la soo noqdaan ayagoo arrimahaas oo dhan qiimeeyay dadka reer Sheffield iyo councilkoodu waxay goosteen in ay Somaliland islaafaan oo islaafkii ugu horeeyay waa bilow waxaanu qabnaa in halka ka sii socon doonto magaalooyinka oo Ingiriiska ka mid ah inay soo isaabulayaan laakiin waxaanu qabnaa in arrinkaasi magaalooyinkii ka gudbi doono councilada uu gudbi doono dawladaha insha Allah sida ugu dhaqso badan ayaan filayaa in islaafkeena degdeg ugu keeno maana hawl noo taalon aad iyo aad gacan u saarin kana shaqeyno dawladuna ku hawlan tahay si degdeg loogu keen lahaa islaafka ummaddu ay aad u hananayso maabahsan waxa uu intii aad ku marayay dalka Ingiriiska warbaahinta qaaday doonayay in madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddiisa diideen lacag loogu talagalay in Sheffield la geeyo taas oo sheegay wasiir macdin uu diiday markaa lacagtaas wallahi war lacagta war ma hayo adoon tigii safiirkuna war u hayo marka lacagta warkeeda ma hayo laakiin run ahaantii markaan soo ogaanay warku soo celinta waxa uu jaalida Somaliland ee Sheffield waxa la sheegay warkiisa soo gaaray inaan la midaysan oo laba dhinac kala baxeen qaarna ay soo dhameeyeen aqoonsiga halkaas qaarna diideen waxa ka socota warkaas wallahi horta jaaliduhu gabi ahaantoodu way soo dhaweeyeen taraafka jaaliduhuna waa u midaysnaayeen waa dhab oo waxa dee moodaa in ay u baahan tahay jaalida reer Sheffield inay midowdo inay meel wax ka wada eegto laakiin markay noqoto arrinka qaranimada gabi ahaantood way soo dhanbay uga soo wada jeedeen waxaan filayaa in ay gabi ahaantood aaminsaneen waxaas inay iyo ictiraafka dhacay inuu ictiraaf aad iyo aad u wanaagsan ahaa guul soo dhalatay dadka reer Somaliland oo ahaa طبعا ده جاليد كستو تكتو كلي فرقو في halkan iyo halkaaba way jirtaa haseeshada waxaan filaynaa in ay dhanbiga soo wada jeedaan hawsha halka ka sii wada ay midoobaan ay unity sameeyaan ay u arkaan qadiyada Soomaaliland inay ka weyn tahay jaaliyada gaar u kala fadhiya marka waxaan filaynaa in taasir laga bogsan doono insha Allah wasiir waxa jirta muddo shacabka Soomaaliland waxay sugayeen hawsha shirkadda Jamaa Energy halkii ku dambeysay waxa ugu dambeeyay oo sheegay inuu suuq doona amaanka oo u gaar ah shirkadaas ka doono halkeeba laga qoriya meelaha keysariya midka qoriya inta soo shirkadda gudaha jooga jacayl iyo saraakiil joogta horta wabadan si wanaaga wasiirkii gudaha laftiisa oo mas'uul ka ah qadiyadan ciidamada loo qorayo batroolka ayaabana la fadhiya hase sidaad ula socoto wasiirku sabab halka dabcan si faahfaahin doona wuxuu appoint gareeyay qolooyin leeyahay asay risk qoladaas report bay soo qortay reportkoodu wuu dhamaaday reportkaasi recommendations badan buu sameeyay wasiirka interior iyo wasaaradii kale la joogtay waan wada hadalay wasiirku wuxuu imika xilka u saaray inay tahay in lacag loo raadiyo lacagtaas oo wasiirku imika hawsheedii wado marka waxaan filayaa inay si degdeg ah wasiirka dakhliga oo agteeda fadhiya uu dabcan hawsha u wado isagaana qaabisan isagaana xil saaran si fiican bay ugu socotaa wasiirkuna dabcan imika si degdeg ah ayuu ugu raadin doonaa lacagtii ku bixi lahayd askarta loo qori doono ciidamada ilaalin doona oo aanu qabno inay tahay tala aad iyo aad u fiican inay Somaliland mas'uul ka noqoto ciidamada ilaalin doona sharikadaha shidaalka oo aan cid ajnabi dibadda loogu yeerin waxaan jecelahay inaan weydiiyo muddadii 4 sanadood ee xukuumadda madaxweynaha ay jirtay safiir madaxweyne magacaabay miisbada lagu sumay siyaasiyiinta ay wasaaradda arrimaha waxay sheegayaan in loo baahan yahay isbedel lagu sameeyo ambassadorska dalalka dibadda ee jooga adiga ku wasiir ahaan طبعا horta taas anay khusaysaa wada siyaasiyiinta wasaaradda jooga shaqadooda maaha
wasaaraddan anaa ka boosa nin kalena boos kama aha hase yeeshee sidaad ula socoto dabcan markuu qof wasiiri magaalo ama jago cusub qabto wuxuu u baahan yahay inuu waqti siiyo inuu darso inuu fahmo inuu arko performance-koodii howlaha laga qabtay wasaaradaha safaaradaha dibadda inuu eego tii loo baahan yahay tii aan loo baahnayn qorshaheedii baan wadaa insha allah ana si degdeg ah waqtiga habboon ayaan ku dhawaaqi doonaa wixii aan u baahnayn laga bedelo والله waxaan u arkaa inay aad iyo aad u foolxun tahay dawladda Soomaaliland waxay qabtaa in ay aan cid UN-ka u shaqeysay cidnaba aan la dilin waanu ka xunnahay maamul goboleedka Puntland guddigeedu way cambaareeyeen dadkaas dad aan nala shaqeeyaan bay ahaayeen aad iyo aad baanu uga xunnahay geerida foosha xun ee ku dhacday dadka United Nations ku shaqeeya ee lagu dilay saad ula socoto Sheffield waa magaalo aad loo yaqaano waa magaalo horumar ah oo progressive ah waa magaalo markii Nelson Mandela uu xidhnaa door weyn ka ciyaartay sideetiisa iyo la dagaalanka midabka la soo casaad Africa kuna guuleysatay inay mid ka dhaliso dadka councilkeeda dad wad arrimaha Kashmir bay la socdaan teenay la socdaan marka waxaan qabaa arrinkaasi inuu u maaragtay arrin aad iyo aad u fiican uu yahay arrin ila siinay opportunity magaalooyinka kale ee Ingiriiska ku taydaan caalamka intiisa kale ku taydo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan dadka reer Sheffield ugu mahadnaqaynaa iyo councilkeeda shaqada fiican ee ummadda u qabteen waxaan qabaa inay halka ka socon doonto oo aanu dawladda kale iyo magaalooyinka la ixtiraafi doonaan waana mahadsantihiin